doorashada hore inuu sheegno wax ilaahay naga xaaraantimeeyay noo xalaaleyn mayso waxay macaasi wadato way naga haray beentii baa laga dhigay siyaasad oo hadda tira war ilaahay ka boqo beenta iska day lagoon aad wadaad baa to siyaasadda garanaysa dadka in la iibsado la yiraahdo lacagtan qaado aniga ay codee kaararkooda dadka in laga iibsado hadii ay dhacdaba shiraa'u dimam weeye waxa la iibin karaa wixii maal ah ayaa shariicadu ogoshay in la iibiyo waxaan maal ahayn in la iibiyaa ma banaana waynu arkaynaa saamaynta ay ku leedahay deganaanshaheeda mar allaale markay doorasho soo dhawaato warwar baa dhacay wararka aan la hubsan ku tiri ku teenta shaa'icaadka ummadda dhex qaada ee la isu sii dhiibdhiibo iyadoo aan la hubsan dadka muslimiinta quluubtooda waxay ku dhaliyaan sabab ugu noqdaan warwar iyo walbahaar murugo iyo deganaansho la'aan waxay ka qaadaan raaxada iyo farxadda tusaalayaasheeda waxay sababaan mafaasid iyo dhibaatooyin waaweyn iyo haddii warka la hubsan waayo oo markiiba xukum lagu dhiso in dad waxaanay galabsan oo aanay xaq ahayn in lagu yidhaahdo ama in lagu sameeyo waxaanay xaq ahayn in lagu sameeyo oo hubsasho la'aantu ay keentay arrinta noocaas iyo tusaalayaal bay leedahay waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhacay waxaa ka mid ah tusaalaha ay culimmadu sheegaan aayaddan aynu akhrinayna ku soo degtay ilaahay subxana wa tacaala aayaddan wuxuu yidhi muuminiintahay haddii war uu idinla yimaado qof faasiqa oo kabaa'irta iyo dembiyada iyo xumaanaha lagu yaqaano sida in horeba loo ogaa inuu beenaale yahay ama qof sinaysta ama waxada ama khamriga cabba amaba se mid lagu yaqaano inuu yahay namaam kabiirada iyo dembiga weyn ee diradiraaraha la idhaha ku sifaysan iska hubsada waxaa iyaduna la xukuma qofka aanad fisqi ku ogeyn iyo xumaan laakiin xaalkiisa aanad garanahayn ma looga qaateen iyo run sheegaa mise waa qof beenaala ah mar hadduu majhuul iyo xaalkiisa aanad garanahayn isaga warkiisa markiiba odhan maysid waa been laakiin waad u hubsanaysaa waxaad raadinaysaa bal cid kaloo looga qaateena oo qofkan warkan la warisay ma jirta waxaa kalooad hubsanaysaa qofkan xaalkiisa miyay jirtaa cid taskiyadaynaysa oo inuu yahay qof looga qaateena og oo arrinta noocaasiya kuu sheegta isla markaana cid xukunkooda masaladaa ku saabsan la aqbali karo ilaahay wuxuu sheegay sababta loo diiday qof faasiqa ama qof aan la garanayn warkiisa in la iska aqbalo waxaa ka dhalanaysa inaad dhibaato u geysataan qowm idinkoo ku dhisay war been oo aydaan hubsan dhibaatada waxay noqon kartaa cirdigooda iyo sharaftooda inaad meel kaga dhacdaan xoolahoodii inaad qaadataan dhibaatada waxay noqon kartaa dhiiggooda inaad daadisaan oo imisaa dhiig xaaraana lagu daadiyey war aan la hubsan oo qof beenta u qasdiyayaa dadka uu sheego dhexdooda uu ku faafiyey ama midaan been isagu u qasdin laakiin si kale beenaalo u noqday oo war aanu garanayn runnimadiisa faafinaya dadka waxa weeyaan u dhex dhigay arrintaana waxay natiijadeedu noqonaysaa marka dambe ay caddaato warkii qofku uu qaatay ee uu ku saleeyay dadka muslimiintaa caydooda iyo wax ka sheegooda amaba se dhiiggooda inuu daadiyo ama xoolahooda inuu qaato arrimahaasoo xaaraannimadoodu ay tahay mid nusuustu ay ku caddahay muslimiintuna ay isku waafaqsan yihiin in marka dambe uu ka murugoodo fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin alla warkaa miyaan iska hubsan miyaan iska aamusan maxaan u sheegaya markaad aragta fasaadka iyo xumaanta iyo dhibaatada warkaagii ka dhalatay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin buu u diray qolo sakadii xoolahooda inuu ka soo qaado ninkaasi qoomkaa wax u dhaxeeyeyba waa ka baqay oo waa ku dhiiran waayo dhexda ayuu ka soo noqday wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi way diideen sakadii inay bixiyaan warkaasina war jiray ma ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi wuu rumaystay kadibna ciidan buu diyaariyey qoladaa sakada bixinteeda diiday suu u weerar waqtigii waxyigu socday bay ahayd ilaahay baa subxaana wa tacaala u digay oo hubsiimo faray taas ayaana qoomka dhiiggoodii iyo maalkoodiiba uu ku badbaaday iyagaaba yimi iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kule rasuulka ilaahayow maxaa dhacay ee sakada aad nooga qaadi weyday warkii rasuulka soo gaadhayna wuxuu ahaa sakadii inay bixiyaan way diideen
arrimaha aan loo hubsanee dadka ku dhex faafay ee warwar fara badan ku beeray muslimiinta qaarkood waxaa ka mid ahaa sida bukhaari saxiixa ku wariyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu oo jooga caaliyatu lmadiina magaalada madiina santarkeeda iyo markaskeeda xaafadihii ka baxsanaa ayaa waxaa soo gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii oo dhan inuu furay xaasaskiisii oo dhan xaasaska nebigana waxaa ka mid ahayd xafsa oo ina cumara cumar ibnu khadaab radia allahu canhu halkaasuu ka soo cararay waxa uu dareensanaa saamaynta xune arrinta noocaasi ay ku yeelanayso dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaana nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo gaadhay masaajidka agtiisa dadkiibuu weydiiyey iyaguna warka ay hayaan waa ku tidhi kuteentaas oo warkaa iyagana soo gaadhay oo qofba qof uu usii dhiibay nebigu calayhi salatu wasalaam dumarkiisa inuu furay cumar radia allahu canhu tusaaluu dadka muslimiinta ugu yahay hubsashada warka intaasoo qura ma aqbalin xukumna kuma salayne rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u galay su-aal buu weydiye wuxuu rasuulka ila dumarkaaga miyaad furtay rasuulku wuxuu uhi maya oo warkii magaalada madiinaba ruuxay ee dhex qaadayay in badan bay munaafiqiintu samayn jireen irjaaf araajiif iyo ishaacaad inay warar dadka muslimiinta ay kusii dhex daayaan ay ku dacaadeynayaan dacwadda islaamkana in badan ay kula dagaalamayaan ayuha almuslimuuna cibaad allah wakhtigan aynu ku jirno waa wakhtu fitan doorashooyin iyo masaa'ibna waa layna daba dhigay diinteennana aan dan u ahayn adduunyadana aan dan u ahayn qof isdiidsiinaya mooyaane qof waliba taa waa garanaya ama aynu ku faanno aynu dhahna somalilan waddan dimuquraadiya oo doorasho qof iyo codaa mar walba laga qabtaa ama xaqiiqadeeda aynu garanno dhibkeeda waynu wada dareensannahay dhibka ay ku leedahay diinteenna waxay noo sababtaa wararka aynu sheegayna in la hubsanay in dadka badankoodu ay ka qayb qaataan weliba dadka la dhegaysanayo ee xogta iyo warka laga qaadanayo in badan oo ka mid in looga qaateenba maaha bal qofkan dhegaysanaya wax allaale wuxuu xaalkoodu yahay war uma hayo qofkani ma muslim baa ma gaal baa ma qof faasiqa baa ma qof saalixa baa oo looga qaateena wuxuu dhegaysanayaa youtube-kaasuu war ka dhegaysanaya ama facebooka ama meel lagu qoru ka akrinaya kadibna markiiba dadka oo dhan buu u sheegayaa dembiga koowaada uu ku dhacay waa war aanu hubsan inuu faafiyey oo uu khilaafay amarkii ilaahay ee ilaahay subxana wa tacaala uu ihi fatabayanuu macnaheedu waa maxay warka aad maqashay intaanad sii sheegin oo adiga aanu ku dhaafin oo afkaaga aanu ka soo bixin bal horta hubsan ma runbaa warkani mise waa been waajiba koowaada ku saaran waa ka haddaad taa yeeli weydo amarka ilaahay baad khilaaftay oo taasaabaad ku dambaabtay hadduu warkii been yahayna qof been sheegay baad noqonaysaa oo been faafiyey beenaalahana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in lagu ciqaabayo qabrigiisa oo qowlalka ilaa qadaadka la jeexayo oo sanka ilaa qadaadka la jeexayo oo isha ilaa qadaadka la jeexayo oo dhinaca kale marka loola wareego jeexitaanka dhinacii hore ay sideedii ku soo noqonayso dana xaggii lagu soo noqonayo oo cadaabka noocaasi uu ku socdo inta qabrigiisa uu ku jiro ama in badan oo ka mid ah wakhtiga qabrigiisa uu ku jiro waxaad noqonaysaa qof dad cirdigooda iyo sharaftooda meel kaga dhacay waxaad noqonaysaa mid nabadgelyo darro sababu noqday hadduu warku nabadgelyo dadka uu saamaynayo waxaad noqon kartaa warkaasi haddii uu yahay war dad inay kala dhintaan oo dadka uu kala dilo sababaya waxaad noqonaysaa mid namaama oo dadkii kala dilay ayaad noqonaysaa waxaad noqonaysaa mid sababu noqda dadka muslimiinta ay qalaq inay galaan warwar iyo walbahaar iyo murugo iyo deganaansho la'aan ayaad noqonaysaa arrinka noocaasiya qofkii muslim ee hore ugu dhacay ilaahay subxana wa tacala uga toobadkeen doorashada horeynu u sheegno wax ilaahay inaga xaaraantimay inoo xalaalayn mayso waxay macaasi wadato way inaga aragay beentii baa laga dhigay siyaasad oo haddaad tira war ilaahay ka boqo beenta iska daya lagoon adu wadaad baatoo siyaasadda garan maysa siyaasaddu ma wax kala waa in beentaa la sheegee oo wararka aan jirin dadka la dhex dhigee war dadkaad caayaysaan iska daaya sheekh garan mayse tan siyaasad baa la idhaahe adigu shareecadada kutubtaada ku koobnow oo shareecaduma waxaanay ka hadal baa jiro xukunkiisa aanay caddayn war dadka ha isku dirine ilaahay ka baqda namiimadu ma bannaanee waxaa lagu odhanayaa siyaasadduba wax kale maaha waa dadka inaad isku dhufato dabeetana dhexdooda aad wax ka qaaddo aad wax ka faa'iiddo waxaa lagu leeyahay siyaasadduba waa noocaas baa lagu leeyahay hadday siyaasaddu noocaa tahay
waxaad markhaati ka noqoteen siyaasaddaasi inay tahay siyaasad xaaraana oo najaasa siyaasad ka dhigaysa wax saxa oo jidaynaysa wixii ilaahay u xaaraantimeeyey oo beena oo dacaayada oo waraan la hubsana oo dadka lagu dhex faafiyaa oo isku dira dadka la isku diraa oo laaluush la bixiyaa oo shiraa'u dimama dadka in la iibsado la yidhaahdo lacagtan qaado aniga ee codee kaadharkooda dadka in laga iibsado haddii ay dhacdaba shiraa'u dimam weeye waxaa la iibin karaa wixii maal ah ayaa shareecadu ogosha in la iibiyo waxaan maal ahayn in la iibiyaa ma bannaana codkuna maal maaha kaadhkuna maal maaha waxaasi iib ma galaan oo shareecadu ma ogola waynu arkaynaa saamaynta ay ku leedahay deganaanshaheeda mar allaale markay doorasho soo dhawaato warwar baa dhacaya dadku ay warwaraan nabadgelyadii ay ka warwaraan talo xaalku sida ayuu noqon doonaa waynu arkaynaa dadkii muslimiinta ah ee walaalaha ahaa ee ilaahay uri innama almu'minuuna ikhwa rasuulkuna almuslimu akhu lmuslim qabyaaladda iyo xumaanta ay dhex dhigayso sida ay u kala dilayso ay u kala fogeynayso iyada asalkeeda ayay tahay in laga tashado oo la dhaho war waxaani inama dhaqayo diin ahaanna inooma dhaqayo dhaqan ahaanna inooma dhaqayo maxaynu ka yeelnaa ila waddada xumaanteedu inoo muuqato inaynu kusii soconno un maaha adugu haddaana taladeeda hayn naftaada adaa u taliya naftaada been ka ilaali oo naftaada cay ka ilaali oo naftaada isku dir ka ilaali oo naftaada qabyaalad iyo waxaan ilaahay daraaddii ahayn dad kale inaad ku nacdo ka ilaali oo naftaada ka ilaali dembi oo dhan fisqiga iyo macaasida dhex socda dumarka iyagoo bilaa xijaaba baxaya safarada galaaya ragga iyo dumarka isdhex galaaya ee waddo xumaantu dadka ay u soo martaa muusiga codkii shaydaanka ee meel walba laga tumanayo ee laga garaacayo waxaasoo dhami waa macaasi adigu kuma khasbanid ilahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara muuminiinta ay naftiinna marka koobaad kadibna ehelkiinna naar ka badbaadiye dadku hadday xumaadaan haddaad caqli leedahay diintaaduna ku xidhayso ha la xumaanin wixii xumaana dadka ha kala qaybgelin wixii wanaaga kala qaybgal oo iskaashigiisa qaybkaa huse ilahay uhi watacaawanu cala albiri waataqwa wixii xumaana cidnaba adigu qayb ha kala noqonin oo ha kala qaybgelin ilahay baa hi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ayuha almuslimuuna cibaad allah ku tihi kuteenta iyo warkaan loo hubsan waxa dawo ka ah marka koobaad qofka muslimkaa warka inuu iska hubsado intaanu sii sheegin aanu faafin mawaaqif iyo tallaabooyin uu qaadana intaanu ku salayn aanu ku dhisin waxaa ka mid ah qofka muslimkaa inuu iimaankiisa xoojiyo alla ka cabsigiisana inuu kor u qaado muraaqabatullah xagga ilaahay inuu iska eegayo intaanu odhan iyo intaanu samaynna inay noqoto mid qalbigiisa xaadir ku ah in qofka muslimka ahi mid waxa koobaad oo ilaashanaya ay tahay diintiisa iyo aakhiradiisa aakhira dadku labay noqonayaan kuwa guulaysta kuwa guul daraysta mid walbana sababteeda waa laynoo caddeeyey qofku waa inuu yahay qof go'aankiisu yahay dadaalkeedana la imanaya kuwa guulaysta inuu ka mid noqdo asbaabtii guushana mid ku dadaalaya asbaabta guuldarrada iyo khasaaraha adduunya aakhirana iska ilaalinaya